السلام عليكم ورحمة walaalkay caafimaadku waa waxa ugu qiimaha badan ee dadka caafimaadka qaba madaxooga saaran waa taajka madaxooda saaran waxaana u jeedo fiirsanayo arka dadka xanuunsan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu noo sheegayaa in kalaamullaahi uu dawayahay in quraanku uu dawayahay marka quraanka laga yimaadana waxaan maanta ku tilmaamayaa suurad khaas ah suurada iyada hadad laazinto haduu xanuun ku hayo hadad u baahanto inuu iimaankaagu ziyaado hadad u baahanto in shubha iyo shubahaad uu qalbigaada ka baxo nifaaq inuu qalbigaada ka baxo hadii cudurro cudwi ah oo muuqda ay ku hayaan hadii cudurro nifaaqa ay ku hayaan ducful iimaan haduu ku hayo dhammaan cudurraas oo dhanba hiya shaafiya ida ka shaafinaysa hiya alkaafiya suurada ka kaafinaysa ibn qayyim waxa uu leeyahay muddo ayaa anigu xanuunsanaya waxaan joogay Makka xanuunka markuu iga tagi waayay baa waxaan soo qabsaday maa zamzam markaasaan ku akhriyay suuradaas markaasaan cabay markaasaan ka booday buu leeyahay markaasaan qof walba xanuunsan baa u tilmaami jiray suurada ayada xadiiskii ku soo aroortay saxiixinka Abi Saciid al-Khudri radiyallahu ta'ala an ardaah wa asaga ma arkay ku akhriyay ninkii sayyidul qawm wa asagii markii la qarinay ku akhriyay masku qarinay ku akhriyay markaa uu ka booday ujurta ka qaatay suurada ayada miya taqaana every day bad akhrisaa laakiin adigoo qafladaysan adigoo mashquulsan adigoo bad akhrisaa waxaan rabaa inaan ku tilmaamo oo suurada aad celceliso oo ku celceliso oo u isticmaasho dhammaan xanuunadaada idil hiya alkaafiya way ka kaafinaysaa madax xanuun haduu ku iyada ka kaafinaysa calool xanuun haduu ku iyada ka kaafinaysa xoolo hadii ma taqaanad u baahanta iyada ka kaafinaysa iyada ayaa wax kasta ka kaafinaysa hiya alkaafiya suurada iyada ah ilaa markuu ka sheekeynay fi suurat al-hijr walaqad aataynaka sab'an min al-mathani walaqad aataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim ayda markay fasirayeen Abu Bakr Umar Ata Qatada عبد الله بن مسعود انت waxa ay leeyihiin sab'a al-mathani tadabad soo noqnoqto ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sheegayo iyo quraanka weyn waa suuratu al-fatiha suurada aan ku soo daro maxay waa suuratu al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سورة داس كم مسجر بعد ما علنتي أخرسا ولقى انت كوبكو أخرسي وحاجر ولا فربضن أو من رقادة أو صوبحي انت ملب يسوق قوشان مالن كست أي لعقتي حولها كدل دشان ومبهند دكتور آدم ومبهند وداد تلفون كاسو عقودهم كو أخرني ومبهند أذيقو اسكو أخري suurada isku akhri awlaadaada ku akhri naftaada ku akhri reerkaada ku akhri waa suurada ugu waaweyn quraanka kamid ah waa suurada lagu bilaabo waa wasfa waa tilmaan waa prescription daily uu qofku akhriyo 17 jeer qofka mu'minka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala 17 jeer laakiin markaad akhrinayso adoo salaada ku jira ma u niisata inaad caafimaado qof waxaad arkaysaa markii salaada laga baxayo imaam ii ducee sheekh ii ducee suuradu akhri uu ducada sheekhu wuxuu ka weydiinay uu leeyahay caafimaad iyo hebel ba operation hebel baa xasan idii uu leeyahay isla suuradu akhniyay baa ku dheer inuu caafimaad ku jiro war akhriso war xaaskaaga bar war reerkaaga bar waa taqaanay laakiin u isticmaal inaad isku daweyso oo antibiyootika iyo cirbadaha iyo kaniinada bacris iska daa oo suuradan i'timaad إلهي سبحانه وتعالى كو عافنا يا حياك الله وبياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل سبسكرايب تنصر لايك يا كومنت يا شيرنا وواحترك إنه عاوي مع السند